waxaan leenahay Cumar Shooli Allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa in aniga halkan ka cadeeyo tabashadii ay qabeen qoyska reer Cumar Shooli iyo midii ay qabeen muxuu ahaa dadkii ku howlanaa arrimahan sida aniga oo kale in ay tabashadaas ay tireen maamulka gobolka Banaadir waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo dhammaan gobolka Banaadir iyo shaqaalihiisu aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sida ay uga soo jawaabeen tabashadii iyo garabkii aan la'ayn ee xagga dawladda in ay soo buuxiyeen arrintaasna kabeen tabashadaasna qaybta horena ay dhamaatay waxa dambeeyana ay dhameystiri doonaan aad iyo aad u mahadsantihiin duqa magaalada iyo ku-xigeenadiisa bismillaah inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun maanta waxaan joognaa halkii lagu aasayay allaha u naxariistay Cumar Cabdulla Shooli waxay ila tahay qof kasta oo Soomaaliya huwa yaqaan Cumar Cabdulla Shooli haddii alla ku rooyay taariikhdiisana cid kasta waxa ku filan magacii looga dhex bixiyay kooxdii oo ka tirsanay madaalihi hawlada waa bari oo ahay magaciisu marka taasuna waxay muujinaysaa inuu ahay haliyay ummadda Soomaaliyeed magac iyo taariikhba ku dhaxle waxaan leenahay bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuuri ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo ajashii dhammaata ifka joogi mayso cid noolaanaysa ma jirto marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo annagana uusan gadaashiisna fidnayn middaasaan ilaahay ka baryaynaa waxaan ku soo dhawaynayaa halyeeyadii ay soo wada shaqeeyeen oo taariikhda dheer iyo halganka dheer ay isla soo galeen maareeyihii hore abwaan cabdulluux yuusuf xasan adaana leh xaggaagay ahaa noqosha eebow naf waliba inay mowda dhame waan ogsoonahay Cumar Cabdulla Shooli muddo badan baan soo wada shaqaynay ilaahay marxuumka ha u naxariisto maanta waa maalintii ugu dambaysay adduunka waa maalintii ugu horreysay aakhiro gurigiisii rasmiga ahaa ayuu tagay gurigiisii rasmiga ahaa ayuu tagay Cumar ilaahay waxaan ka baryaynaa marti la jecel yahay oo si fiican loo soo dhaweeyo ilaahay inuu ka dhigo amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu qabriga u waasiciyo amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu u naxariisto amiin ilaahay waxaan ka baryaynaa intuu dhalay iyo intay sii dhaleen iyo saaxiibadii intay wada shaqeeyeen ilaahayga casa wajalaha inuu samir ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay samir ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa annaga inuu samir naga siiyo Cumar waxaanu isla ahayn kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed waan isaga horreynay waa bari ilaahay waxaan ka baryaynaa muddo badan baan wada shaqeynaa ilaahayga casa wajalaha naxariistan la koobi karin inuu siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis aan la koobi karin inuu siiyo abwaanku waa qiirooday cafi iyo masaabax aan la koobi karin Allah siiyo